السلام عليكم غير شرفتنا كسو dhawaada kulli TV halka waxaan kugu soo gudbinaynaa gabar mar dhawaad isbarateen ereyaha hadii aad kula hadasho ama aad u qorto ay si degdeg ah kugu nici karto soo dhawaada gabar ayaa fariin qoraal ku shukaansanaysa kadibna hal mar ayay ka aamustay oo wax jawaab ah waad ka weysay kadibna waxaad isweydiin maxaa dhacay oo aan ka sameeyay miyaysan idanaynin taas ma kugu dhacday wali hadii jawaabtaadu ha tahay haddii jawaabtaadu waa tahay fariin qoraalku waa midka ugu fiican markii la barbar dhigo ku hadalka taleefanka haddii aad tahay shukaansi barad balse waa haddii aadan sameyn doonin waxyaabahan soo socda aan ka hadli doono ama aadan qori doonin ama aadan gabadha kula hadli doonin laga yaabee inaad gabadha u qortay fariin aan loo baahnayn laga yaabee inaad khaladkaaga fahmi weysay oo gabar kasta si fudud kugu dhaafto marka aad barato wax macquul ah oo suuragelin kara inay gabadha hadalkaaga xiisayso meesha lama aadan imaan ama sidaad wada sheekaysiga u sii wadi lahayd ayaad garan weysay marka waxaan kuu sheegi doonaa waxyaabaha inaad gabadha kala hadasho loo baahan yahay iyo waxyaabaha aan loo baahnayn inaad kala hadasho oo suuragelin kara inay gabadha kugu nacdo sirta shukaansiga wax badan ka ogow hebel waa sheekaalow gabdhuhu maalin kasta bilaash uma dhahan marka ugu horreysa ee aad lambarkeeda hesho la hadal oo wac marka aad isleedahay markaan guriga ayay joogtaa oo wax hawlo ma hayso uma baahnid inaad maalmo kadib wacdo sababtoo ah dumarku aad bay u hilmaam dhow yihiin oo inay ku garan weyso kuna inkirta ayaa dhici karta ha u dirin sawirada jacaylka ka hadlaya oo xad dhaaf ah sababtoo ah taas gabdhaha ayaa caado u leh oo aad iyo aad u sameeya gabdhuhuna ma jecla waxyaabaha ay ayagu sameeyaan in lagu soo celiyo haddii aad sawir u dirayso u dir dhowr sawir oo micno leh sida sawirada ka hadlaya jacaylka iyo kuwa geeraarka ha la hadlin maalin kasta ama ha wicintani wixii ka sii xuntaa wiilka isbarashada koowaad hadalka kala soo daahay ee gabadhu sida fudud ku hilmaantay inaad noqoto wiilka maalin kasta taleefan ama si joogto ah fariin ugu dira tani waa dhibka ugu weyn ee sababi kara inaad gabadha agteeda ka noqoto mid aan la xiisayn ama gaarsiiye yacni u sheekayso markii wiil ay xiisaynayso uusan qadka ku jirin hana noqon midka wakhtiga la isku dhaafiyo haddii wiil ay xiisaynayso uu soo waco gabadha aan ku xiisin si kadiisa ayay hal mar qadka uga baxaysaa una weynaysaa jawaabaheeda ayadoo wax sabab ah kuu sheegin tanina waa midda aad ku fahmi karto inaad gabadha agteeda ka tahay waxba yahay haddii aad doonayso inaad shukaansiga guul ka gaarto gabadha u dir kulana hadal fariimo xadidan ama hadal micno leh oo aad isleedahay aad bay u xiisaynaysaa micnaha ma ahan haddii aad gabadha kula hadasho hadallo kooban inay ku nici doonto keliya xiisaha ay kuu qaadayso ayaa aad iyo aad u sii badanaya ha ka baqin gabadha inaad la kaftanto sababtoo ah gabdhaha aad bay u jecel yihiin ninka kaftanka badan kulana kaftan waxyaabaha isleedahay way xiisaynaysaa iyo hadal edab leh mar walba gabadha ah uga hormarin wicitaanka ama fariimaha sababtoo ah gabadha tani wixii ka hor istaagaysaa inay ayadana xiiso ku qaado kuna soo xasuusato sababtoo ah hadalka ayaa ku daalisay kuna badisay haddii aad adigu mar walba wicitaanka iyo fariimaha ku hormarta gabadha waxay dareemaysaa inaad xiisaynayso inta ayada ku xiisaynaysa ka badan taasi oo sababi karta inay kaa xiiso dhacdo sababtoo ah waa dabeecad ku beran bini'aadanka inuusan saa'id u xiisayn qofka xiiseeya markii la barbar dhigo qofka aan asaga xiisayn subax kasta ha u dirin subax wanaagsan sababtoo ah taasi muhiim ma ahan ka ilaali mawduucyada adag sida muranka iyo wixii la mid ah isku day inaad ogaato waxyaabaha ay gabadha xiisayso kala hadal sababtoo ah gabdhaha way jecel yihiin ninka kala hadlo waxyaabaha ay xiiseeyaan oo niyaddooda ku jira ha ku hadlin hadal tiro badan haddii aadan hayn wax fiican oo aad ka hadasho sababtoo ah hadalka micno la'aanta qof xiiseeya ma jiro haddii aad dareento in dhammaadka sheekada la gaaray maca salaamay gabadha hadalkana soo xir talada ugu dambaysa mar walba aad wacayso ama aad la hadlayso ha jirto sabab aad ula hadlayso fariintaada ama wicitaankaaga ayaysan noqon mid micno darro ah oo aadan gabadha wax faa'iido leh u sheegin haddii aad muuqaalkan wax ka faa'iiday muuqaalka like saar siina share garay channelkana subscribe dheh si aad ula socoto muuqaalada dambe ee aan soo geli doono aad ayaan ugu mahadsantahay daawashadaada wabillahi tawfiiq